salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti haboona daawadayaal, halkan waa shabakada wararka ee Shumise TV. waxaad ka daawataan wararkii ugu dambeeyay xaqiiqada ku salaysan gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale dalka dibadiisa. daawada haddii uu kusoo gaaro muuqaalkan iyo sidoo kale qodobadani xasaasiga sii shargare lana wadaaga saaxiibada adigoona ka tegin laga comment intaba qodobada xasaasiga ee warkeena ugu door karoon haddii ay baweyno ogolaadana waxaa kamid ah ciidamada BSF oo weerar ku qaday hotel magaalada Boosaaso uu ka degay wasiirka maaliyadda maamulka Puntland Abgaal, iyadoona la tilmaamay inuu si dirqa uga baxsaday hotelkaasi. waxaana la tilmaamay in hotelkaasi baaritaano ay ku sameeyeen ciidamada BSF, iyadoona la sheegay xilligani ciidamada BSF inay bilaabeen inay baaritaano ka sameeyaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Boosaaso iyo sidoo kale si weyn isugu fidiyaan qaybaha kala duwan ee magaaladaasi. waxaa xilligani gebi ahaanba gudaha magaaladaasi aan dib ugu soo laabanin dadkii shacabka ee ka barakacay. xubnaha ka mid ah kooxda Aranjan oo Said Abdullaahi Dani uu ka diray magaalada Garowe ayaa xilligani awoodi waayeen inay ku sugnaadaan gudaha magaalada Boosaaso, iyadoona qaar ka mid ah xilligani la sheegayo inay ku sugayeen kontroolka magaaladaasi. absida xoogan ee xilligani sida weyn oo soo wajahday kooxda Aranjan ayaa muujinaysa jabka xilligani ay dareemayaan kooxda Aranjan iyo sidoo kale fashilka ay kala kulmeen ciidanka BSF. qodobadaas ayaanu daqiiqadaha soo socdo isdul taagi doona daawadayaal. qodobka doodeena doonan inaad aragtidina kasoo dhiibateena waxa uu yahay xilligani ciidanka BSF ma awoodaan inay gebiyahan bay la wareegaan magaalada Garowe marka laga soo tago magaalada Boosaaso, maadaama xilligani kooxda Aranjan si weyn ugu jabeen inay ka wadroonadaan ciidanka BSF. wararka laga helayo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulka Puntland ayaa sheegaya in gudaha magaaladaasi saacadii ugu dambeeyay hotel halkaasi uu ka deganaa wasiirka maaliyadda kooxda Aranjan deegaanada Puntland Abgaal ay weerar halkaasi ku qaadeen ciidamada BSF, iyadoona la sheegay in si dirqi ah wasiirka uga baxsaday hotelka ku yaala gudaha magaalada Boosaaso. waxaana la sheegay in hotelkaasi si buuxda la wareegeen ciidanka BSF iyo sidoo kale inay baaritaano ka sameeyeen, iyadoona dhammaan hotelada ku yaala magaalada Boosaaso ay si weyn uga digeen mulkiilayaashooda in hoteladaasi ay degaan xubno ka mid ah kooxda Aranjan. waxay ugu hanjabeen ciddii u ogolaatay kooxda Aranjan inay degaan hoteladaasi inay tallaabo ka qaadayaan, iyo sidoo kale in hotelkaasi uu ka dhici doono dagaal khasaare ballaaran geysta. iyadoona la sheegayo xubno sare oo ka mid ah kooxda Aranjan Said Abdullaahi Dani u diray magaalada Boosaaso inay ku sugayeen kontroolka magaaladaasi, iyadoona cabsi badan ay ka qabaan haddii ay gudaha u galaan magaalada Boosaaso inay weerar kala kulmaan ciidanka BSF iyo sidoo kale inay gacanta ku dhigaan. xilligani waxaa la sheegaya qaybo badan oo ka mid ah gudaha magaalada Boosaaso inay si weyn iskugu fidiyeen ciidanka BSF iyo sidoo kale xilligani in gudaha magaaladaasi gebi ahaanba shacabkii ku noolaa xilli hore iskaga barakaceen dibna aysan ugu soo laaban. waxaa la sheegaya ciidanka BSF inay bilaabeen isku ballaarinta qaybaha kala duwan ee magaalada Boosaaso, iyadoona xilligani la sheegayo in gebi ahaanba albaabada la iskugu dhuftay kadib magaalada Boosaaso. kooxda Aranjan ayaa doonaysa in magaalada Boosaaso ay si sahlan gacanta ugu dhigto, iyo sidoo kale xildhibaanada halkaasi doorashadooda ay ka dhacaysa inay si toos u boobaan. waxaase xilligani dhammaan dabacaasi si weyn u fashiliyay ciidanka BSF kadib markii suuristaaga ku sameeyeen boobka doorashada deegaanada Puntland, taasi oo keentay xilligani khilaafka xooggan u dhexeeya ciidanka BSF hogaankooda iyo sidoo kale kooxda Aranjan. Said Abdullaahi Dani ayaa saacadii ugu dambeeyay magaalada Garowe isagoo ku sugan waxa uu hanjabaad u diray hogaanka ciidanka BSF, isagoona sheegay inay si degdeg ah soo dhiibi doonaan sidoo kale ciidamada deegaanada Puntland xilligan inay si weyn ugu sii qulqulayaan magaalada Boosaaso. Said Dani ayaa hadalkaasi marka uu sheegayay waxa uu si weyn ugu muuqanayay mid ka awood badiyay ciidanka BSF, isagoona Said Abdullaahi Dani ciidamada tababarkooda uusan wanaagsaneyn ka soo arooriyay degmooyin ka mid ah deegaanada Puntland ee iskugu geeyay kontroolka magaalada Boosaaso laga galo. waxaana markasta ciidamadaasi si weyn doonayay inuu ugu cabsi geliyo ciidanka BSF, balse ciidanka BSF oo ah kuwa sida gaarka u tababareen dowladda Mareykanka ciidamadeeda ayaa xilligani ay adag tahay inay si weyn uga guulgaaraan ciidanka sida tooska uga amar qaadanaya kooxda Aranjan. xilligani waxaa muuqanaysa kooxda Aranjan fashilka soo gaaray, iyadoona dhanka kale la tilmaamay odayaal dhaqameed ku sugan magaalada Boosaaso xiriir kala duwan la sameeyeen inay u sheegeen inay lacag badan siinayaan haddii ay taageero muujiyaan, balse odayaasha ayaa gebi ahaanba diiday kooxda Aranjan, iyagoona sheegay xilligan inay duulaan ku yihiin xasiloonida horumarka iyo sidoo kale deganaanshaha magaalada Boosaaso. jabka xilligani soo gaaray kooxda Aranjan iyo sidoo kale fashilka xooggan ee lagu sameeyay damacoodii ku aadana magaalada Boosaaso ayaa xilligani ka dhigaya mid xilligani kooxda Aranjan cabsi badan ay ka qabaan haddii laga soo gudbo magaalada Boosaaso si weyn loogu jabiyay ciidamadooda in ciidanka BSF gebiyan bay doonayaan inay qabsadaan magaalada Garowe. cabsida ugu badan ee xilligani ay dareemayaan kooxda Aranjan ayaa ah weerar
lagu soo qaado magaalada Garowe maadaama xilligani si toos ah u muuqato ciidamadii farada badnaa ay isku geeyeen magaalada Boosaaso inay wadi waayeen inay cagta mariyaan ciidanka BSF. Ciidanka BSF oo xilligani la sheegay inay qoteen dhufaysyo jiifay joog ah ayaa waxay cabsi badani ku hayaan ciidamada sida weyn u taageersan xilligani kooxda Aranjan. xubno ka mid ah kooxda Aranjan oo ka mid yahay wasiirka maaliyadda ayaa si weyn iskugu dayay in ay gaaraan magaalada Boosaaso iyo sidoo kale in halkaasi ay kula qaataan waxgaradka ku sugan. balse waxaa la sheegay hotel uu degay wasiirka maaliyadda inay weerar ku qaadeen ciidanka BSF sidoo kale in gibiyaan hotelkaasi la wareegeen iyadoo la sheegay in si dirqa looga bixiyo hotelkaasi. xilligani waxaa la sheegay in abgaal ku sugan yahay kontaroolka laga galay magaalada Boosaaso halkaasi oo la sheegay xilligani inuu si weyn u deegaansanayo maadaama cabsi badan uu ka qabo inuu seexdo mid ka mid ah hoteelada caalamiga ee ku yaala gudaha magaalada Boosaaso. gibiyaanba waxaa xiran ganacsigii isu socodkii iyo sidoo kale dhammaan bulshadii ku nooled gudaha magaalada Boosaaso ayaa xilligani deegaansanaysa duleedka magaaladaasi iyaguna xilli kasta cabsi xoogani ka qaba dagaal xoogan oo ka qarxa gudaha magaaladaasi. kooxda Aranjan ayaa xilligani gibiyaanba diiday inay wada hadal ka gasho xiisada u dhaxaysa iyaga iyo sidoo kale ciidanka BSF, halka hogaanka ciidanka BSF-na ay wacdi ku mareen inaysan wax gorgortan la gelinin kooxda Aranjan iyo sidoo kale inay sii wadayaan halgankooda ku aadan la dagaalanka raadiga nabadiidka. halka kooxda Aranjan iyo sidoo kale ciidamada xilligan ay soo abaabuleen u arkaan kuwa aanan wax dhib ah u geysan karin iyo sidoo kale kuwa ay adag tahay inay weerar ku soo qaadaan ciidanka BSF. saacadihii ugu dambeeyay qaybo badan oo ka mid ah gudaha magaalada Boosaaso waxaa si weyn loogu arkayay ciidamada BSF oo si weyn iskugu fidinaya halkaasina howlgal ka wada iyadoo la sheegay kooxda Aranjan xilligan inay gibiyaanba bilaabeen inay ka baxsadaan magaalada Boosaaso iyo sidoo kale inay dibadda ka noqdaan gudaha magaaladaasi. ciidamo badan oo Sayid Abdullaahi Dani oo ka qaaday qaybaha kala duwan ee deegaanada Puntland ayaa ilaa hadda aanan wax horumar ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso iyadoona kooxda Aranjan markasta ay si weyn ugu gudinayaan inay weerar qaadayaan iyo sidoo kale in dagaal khasaare ballaaran geysta oo ka dhici doono gudaha magaaladaasi. balse saraakiisha ciidanka BSF ayaa ku tilmaamay hadallada ka soo yeeraya kooxda Aranjan inay yihiin kuwa aan waxba ka jirin iyo sidoo kale xilligani kuwa lagu cabsi gelinayo ciidanka BSF. waxaa dhanka kale la sheegayaa in qayb ka mid ah deegaanada Puntland xilligani si weyn looga soo cabanayo dhibaatooyin iyo baad dadka ku nool deegaanadaasi qayb badan oo ka mid ah ay ku hayaan raadiga nabadiidka xilligan ay bilaabeen in xoolo iyo sidoo kale lacag ay ka urursadaan dadka reer miyiga. waxaa dadka ku nool deegaanada Puntland gaar ahaan qayb badan oo ka mid ah gobolka Bari ay tilmaameen xilligan kooxda Aranjan inay si weyn ula shaqeynayaan raadiga nabadiidka maadaama ay sheegeen ciidamadii ka difaaci jiray ciidanka BSF in xilligan ay weerar ku yihiin sidoo in gibiyaanba ciidankii BSF ay baneeyeen goobihii ay difaac uga jireen. waxaana sheegeen xilligani buraha galgala inay si toos ah ugu dhuumalaysanayaan xubno badan oo ka mid ah Daacish iyo sidoo kale raadiga nabadiidka iyagoona tilmaameen dhammaantood xilligani aysan jirin cid hor fadhida iyo sidoo kale in dhibaato kasta ay ka geysan karaan qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Puntland. waxaa la sheegay isimada deegaanada Puntland inay tilmaameen in kulan xasaasi ay ku qadanayaan qaybaha kala duwan ee deegaanada Puntland iyagoona sheegay in kulanka ugu horeeyo uu ku qabsoomi doono magaalada Garowe. waxaa la sheegay xilligan isimada ku sugan deegaanada Puntland inay si weyn uga soo horjeedaan habdhaqanka kooxda Aranjan iyo sidoo kale xilligan inay u arkaan in kooxda Aranjan ay yihiin kuwa dhibaato ku ah maamulka Puntland iyo sidoo kale xilligan Sayid Abdullaahi Dani inuu doonayo in dagaal sokeeyo uu ka abuuro qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Puntland. waxaana la sheegayaa arintaasi inay si weyn uga dambeyso dowladda Imaaraadka Carabta. ciidamada ugu badan ee xilligan magaalada Boosaaso oo duldhigay Sayid Abdullaahi Dani ayaa ah ciidan gacanta ay ku hayso dowladda Imaaraadka Carabta kuwaasi oo magaalada Muqdisho dhibaatooyin kala duwan ka sameyn jiray xilliyadii hore. ayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo markii la wareegay talada dalka waxa uu gebiyaanba ku qasbay in hubka dhigan iyo sidoo kale lagu kala daro ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya. xilli dowladda Imaaraadka Carabta ay si weyn u qorsheysay in ciidamadaasi hubkooda gudaha u galaan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale in dhibaatooyin ka sameeyaan magaalada Muqdisho. xilli aroor ah ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya madaxweynaha dowladda Soomaaliya ku amray inay weerar ku qaadaan ciidamada ka amar qaatay Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale in gebiyaanba hubka dhigis ay ku sameeyaan. waxaana gebiyaanba la soo afjaray ciidankii dowladda Imaaraadka Carabta ay ku laayeen magaalada Muqdisho. nabadgelyo darro ay si weyn xilliyadii hore uga sameyn jireen qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa markii ay gebiyaanba gacanta ku dhigtay dowladda Soomaaliya si weyn looga raystay iyadoona xaafadaha halka ay deganayeen ciidamadaasi ka agdhawaa markasta ay dhibaatooyin kala kulmi jireen ciidamada dowladda Imaaraadka Carabta halka muddooyinkii dambe ay sheegeen inay si weyn uga raysteen iyo sidoo kale inay mahadnaq u jeediyeen madaxda dowladda Soomaaliya. xilligan dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxaa la sheegay inay si weyn uga dambeyso shaqaaqada iyo sidoo kale xaaladda adag ee ka tagan magaalada Boosaaso
dowladda Imaaraadka Carabta ayaana marnaba doonayn xasilooni meel ay ka jirto gudaha Soomaaliya. meel kasta oo Imaaraadka Carabta ay faragelin ku yeeshaan ayaa waxaa la sheegay in Isweyn uga horanayaan dagaalo sukeeye iyo sidoo kale iskoorimaad halka maamulka halkaasi ku sugan halka cid kasta oo markaasi ay iskaga dhigayaan in la shaqeynayaan ay doonayaan inay si weyn hadaba ugu ridaan iyo sidoo kale bulshada koor keenaan. guud ahaan warkii oo ka daawanayseen baahinta shabakada wararka ee Shumise TV waanaga inta daawadayaal intaanu ku kulmi doono warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas amana la ismaqal dambe oo xiiso leh.